farxadeed midnimada Soomaaliyeed lagu ayiday lagu garab istaagay loogu hiiliyay waxay ahayd madal aad u qurux badan waxaan u hambalyeeynaya qolada loo dabaaldegayay maamul goboleedka cusub ee ku soo biiray si official ah uga mid noqday maamul goboleedyada wadanka maamul goboleedka waqooyi bari Soomaaliya madaxweynaheeda firdhiye iyo dhammaan inta xilka loo magacaabay oo dhan waxaan leeyahay balyo ilaahayna waxaan ka baryayaa inay dinaan ku ceeboobin xilka laydin igmaday waxaan kaloo rabay inaan halkan ka cadeeyo waxa ii muuqata themeka ama modelka ay dadkoo dhan raacay dad badan ba halka khudbada qiimo badan ka soo jeediyay oo kala duwan oo salaadiin iyo isma leh oo siyaasiyiin iyo madax leh kuwa joogay iyo kuwa horaba laakiin hadallada macnaha leh raacay waxaa ka mid ah marka koowaad in dadka oo dhammi ay yihiin dad wada baaq nabadeed oo ku wajahan oo ku aadan reer Somaliland waxaan leeyahay reer Somaliland oo markaan caqli u hataliyo ummadda aad ka cararaysaan waa ummadda idin leewar waa idin jecelnahay naga teginina ilaa madaxweyne ilaa qof kasta oo maamul iyo maamuus haya makarafoonka qof qabsaday oo aan idin yeerin ma jiro waxaad sheeganaysaan waxaa la ballan qaaday in laydinka dhaahiyo horey waxaad u hesheen maqaam madaxweyne Soomaaliyeed raaligelin u bixiyay oo uu ka raaligeliyay wixii dawladdii hore ee Soomaaliyeed idinka soo gaaray mar badan waxaan sheegay dawladdaas rejiim bay ahayd rejiimkii raggii u shaqeynayay baa wali hadda kan xilka haya dawladdaas isagoo la shaqeynayo shaqaale waabay dawladdu ka dhacday marka rejiim bay ahaayeen reer gaara iyo dad gaara iyo koox gaara iyo qof gaara midna ma ahayn waa laydinka raaligeliyey waxaa laydin sheegay wax walbaa laydin ogolyahay madaxweynuhu wuxuu idin yiri xil alla xilkaa rabtaan baanu diyaar idin lanahay waa intaan ku celcelin jiray war dadku idinkama cararayee dadkiina ha ka cararinina intaasay ahayd gundhiga hadalka ku saabsan Somaliland waxaa kaloo ku jira waan rabaa inaan idin xasuusiyo war keliyiin victim ma hidin idinka keliyiin dhibidin ma gaarin dawladdaas rejiimkaas cirra ka tirsanaa dad badan oo qabaa'il kale ah baa dhib ka gaaray cid ilaa iyo hadda hifanaysaa ma jirtee waa liqday cid walba horeyna uga socotay xilli horey ahayd 35 sano laga joogaa 36 baa hadda la galay ka socda move on horey fiiriya gadaal ka sheekaynina waxaan rabaa oo kale inaan idin xasuusiyo kelmadda uu madaxweynuhu yiri nin Soomaaliyeed oo hooyadii soo booqanayana uma ogolidin hadduu u taagan yahay midnimada oo reer Hargeysa yahay yahuudna waa keenteen dalkii kuwa lugeynaya soo galay oo jawaasiis oo Mossad ka socda oo IDF criminalski dadka soo laaya sax ma waxaan sax ahayn dad qaxootiya oo Soomaaliya oo la soo tarxiilay oo Carabaha laga soo tarxiilay in barbara loo diiday inay ka degaan waxaa sax ahayn dad ku dhashay oo ku dhaqmay oo ku dhalay tay ku dhisteen ku dhalay inaa ka tarxiisheen gobolada aad idinku mas'uulka ka tihiin oo Soomaaliya intaas oo dhan oo dhacday waxaa ka mid ah xasuuq tiro badan oo aad geysateen awdal baa ka geysateen lascaanood baa intaa waxaa laydin leeyahay waxaasoo dhan laydinma haysto cafis weeye idinkuna tiina dhigoo cafiya ummaddana usoo noqda laydinkama maarmo waa laydin jecel yahay usoo laabta dadkiina waxaan leeyahay reer Somaliland markaan caqligu ha taliyo xamaasadda dhiga markaan caqligu ha taliyo meel lagaa jecel yahay haddaa ka tagtid meel lagaa necab yahay baa tagtaa kelmaddaas reer Somaliland baa loo diray bay ahayd anna waa ayidayaa walaalayaalow joojiya cararka ilaa aad Israa'iil iyo meel daran kala dhacdaan oo magaraysaa diintiina iyo caqiidadiina aad ku khamaartaan wax aad sidaa uga carartaan meesha ma yaallaan dal iyo dad aad idinku leedihiin oo idin jecel oon cidina idinka xigin baa meesha yaalla ood ka cararaysaan waxaa ku ordaysaana waa waxaan la aqoon iyo annahu marka soo laabta kelmadda kale oo macnaha lahayd oo muhiimka ahayd oo soo noqnoqotay waxay ahayd dadka Soomaaliyeed ee doonaya Soomaalinimada
هلا أودي وأود هلا السي سيدا غير أوضل ومروا بلتاعن قيلو ودوينك أولي أنا وصوماليا بانو ربنا يقولون وحي إليه المضمان يا أمان وهكذا بوغادين لي مرتشرف تكسو قيب قشي ودمضك لكتي من سيدا كينيا فرح معلم ان إيو جيبوتي إيو إثيوبيا وليري وفدي وكسعودي ان يقولون وحي لهايم بوغادين وحا مرتشرف تكمد أها سفيرو ككلا سعودي تركي سعودي إيو السودان يقولون آدوا مهتيهين بوغادين بين مدينين isimada iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta meelo badan ka kala yimi iyagu de waa dalkoodii iyo degaankoodii waxaan si gaar u bogaadinayaa maamul goboleedka keliya ee joogay ee ah maamul goboleedkii galmudug qoorqoor waxaan ka xumahay nimankii soomaaliyeed maalinba qola fashilantee jaranjarada idinka dhigan jiray dadow shacabkaan la hadlayaa weliba waxaan la hadlayaa shacabka ay matalaan deni iyo axmed madoobe waxaan ilaalinaa tolka iyo qabiilka dantiisa iyo aayihiisa bay idiin sheegi jireen jaranjarana aad ugu ahaydeen markay rabaanna idinku marsan jireen kaarkay xoqan jireen oo qabiilka ahaa maanta maamul goboleed reerkooda abaa la dhisay labadiiba waa ka maqan yihiin waxay caddayn u tahay been inay tahay waxay idiin sheegaan anigu waa idinku celceliya laakiin wax ma barataan wax bartana laydinkama karo warqalinka qaata oo kobciya wacyigiina kor u qaada wacyigiina qofka siyaasiga ah oo soomaaliga ah oo hadda nool intaan naqaan inta aan garanayno qolkiiba 99 dantooday ka shaqeeyaan adiga dan aa leedahay iyo qabiilkiinu dan uu leeyahay midna kuma maqna maxaa kama jiraan waa khuraafaad caddayn mawta maamul goboleedkaas soo kordhay oo hadda qabiil haddii hadda lagu taageerayo ay ku taageeri lahaayeen labadooda inay ka maqan yihiin qoorqoor oo diidi lahaana uu taagan yahay oo difaacanayo ma aha marka qabyaalad maaha waa aragtidooduna waa mid guraacan aragti loogu shaqeeyo ajnabi iyo wadamo qalaad iyo ajanda qalaad bay xambaarsan yihiin fadeexad iyo ceeb bay kala tageen meesha maanta bay kala maqan yihiin waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay boqorka boqor burhaan iyo suldaan siciid oo ku matalayay reer puntland fadhiga maqaamkii ugu sarreeyey oo puntland laga heli lahaa waa kaa wax ka sarreeya madax oo la saraxa ma jiro waa igu matashaan guul iyo gobonimo hadalkiinuna hadal macnolo ahaa waa noogu dhan tahay gobolkaas soo kordhay idinkaa iskale boqorku wuxuu yidhi waa dowladdeydii koowaad waa kula qabnaa waa kugu taageersannahay dowladdeennii koowaad weeye dhista dhaqda dhinac istaaga maaragtay difaacda dhiiggiyo dhacaankaba u shuba waxaan kaloo ku khatimayaa ummadda soomaaliyeed xusuusta 100 sano ka hor halkaas waxaa laga bilaabay halgan lagu difaacayo ama ka jiray halgan lagu difaacayo midnimada madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliyeed meeshii laftigeedii way xuduntii ummadda Soomaaliyeed bridge-kii midnimada Soomaaliyeed qadiyadii 100 sano ka badan jirtay oo dib u soo noolaatay calanka buluuga ah baynu wada harsanaynaa ilaahayna ku baryeynaa kuna aqoonsanaynaa dad muslimiin oo rabbi yaqaan baan nahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa amni iyo amaan